shan xisbi oo ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalka Soomaaliya ayaa la guddoonsiiyay shahaadooyinkooda sida ku-meel gaarka kadib munaasabad lagu qabtay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. munaasabadani waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socotay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, xubno ka socday xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalka Soomaaliya iyo marsharaf kala duwan oo munaasabadani lagu casuumay. maxamed cusmaan shuuriye oo xildhibaan ka soo noqday baarlamaankii 9aad ahaana markaasi sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo guryeenta haatana xogayaha guud ee xisbiga Daryeel ayaa marka hore ka hadlay munaasabadani shahaadooyinkooda lagu guddoonsiinayo iyo siday u arkaan. waxa weeye xisbiyadan waa xisbiyadii ummadda Soomaaliyeed mathali doona siyaasiyan iyo dhinac walba u mathali doona. sidaas darteed waxaan rajaynayaa in la yimaado isbedel cusub oo ummadda Soomaaliyeed u horseedi doona dimuqraadiyad. waxaan filayaa xisbiyadan runtii in ay kulli isku diyaarinayaan inay ka qayb galaan siyaasadda dalka oo aan rajaynayo in 2020ga nagu soo foodleh. sidaas darteed haddaanu xisbiyada annagu waxaan u baahannahay siyaasad degan si loo gaaro geedi socodka nabadda. sidoo kale qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalka Soomaaliya oo la hadlay telefishinka Somali News ayaa waxay u mahadceliyeen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. maanta waxaan guddoonnay shahaadadii lagu aqoonsanayay xisbiga Daryeelka Soomaaliyeed. waqti dheer juhdi badan dadaal badan oo la soo galay warqadda aqoonsiga ama shahaado sharafti aad iyo aad bayna ugu mahadsan yihiin. xisbiga Daldis wuxuu ka mid yahay xisbiyada hadda si ku meel gaarka u qaatay aqoonsiga. sidoo kale wuxuu ka mid yahay xisbiyada ahdaafta fog leh suu dalka u horumarin lahaa dib dhiskiisana uga qayb qaadan lahaa. waxaa danteena tahay inay soo laabato Soomaali weyn sidii la yaqaan inay ku soo laabato inaan muxuu ahaa ilaalino qof walba xuquuqdiisa. galiyay madaxweyne kadib waxaan rabaa inaan u diro hambalyo iyo bogaadin dhammaan taageerayaasheena xisbiga Samadoon dalka gudihiisa iyo dibaddiisa meel walba ay joogaan inay maanta nala qaybsadaan oo nala wadaagaan farxaddan qiimaha badan oo ay tahay maalintii aan si rasmi ah ugu biirnay oo ga mid noqonnay bahda axsaabta qaranka Soomaaliyeed. insha Allah xisbiga mayba waha xisbe mustaqbalka insha Allah ayad targetkan saaraa hoggaan saaraa inuu cadaalad isnaan ummadda Soomaaliyeed ka hoggaan. waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa xisbiga Daryeelka Soomaaliyeed runtii oo ah xisbi aad runtii wax walba daryeeli doona hadday noqoto waxa weeye shacabka Soomaaliyeed hadday noqoto waxa weeye meel walba ay joogaan gobolada dalka dhinaca caafimaadka dhinaca waxbarashada dhinaca biyaha dhinaca walbaba waxa weeye. ugu dambeyntii waxaa munaasabada ka hadlay Xuseen Cabdi Aadan oo xubin ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa waxa uu sheegay in xilligani looga baahan yahay xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalka Soomaaliya inay ka shaqeeyaan sidii ay u furan lahaayeen xafiisyadooda isla markaana shaqooyinkooda ay u sii wadi lahaayeen. waxaan diyaarinaa hadda sida uu sheegay xafiiska diiwaangeliyaha foomka laydin kormeeli lahaa oo xafiisyadiina lagu tegi lahaa oo lagu soo arki lahaa shaqadiina iyo sidaad u haysataan oo lagu soo arki lahaa maaliyadiina iyo sidaad u maamulataan oo lagu soo arki lahaa taageerayaashiina iyo hawshiina meesha ay marayso. waddankan wuxuu u baahan yahay inuu ka baxo nidaamkii hore oo qabiilka iyo aan wax ku qaybsanayn inuu ka baxo. Cabdiraxmaan Waabri, Som News, Muqdisho.